أصحابتنا qaaliga ah ee ku xiran channelka YouTube-ka, Facebook, TikTok Macalin Saalax. Dhammaan asxaabta qaaliga waa salaamantihiin. Duur wanaagsan, maalin wanaagsan. Qof walba waxay u tahay insha Allah billahi rahmaan. Inta caafimaad qabta Allah u saa'idiyo. Inta caafimaad qabta Allah u saa'idiyo. Inta xanuunsan Allah noo caafiyo. Inta xanuunsan Allah noo caafiyo. qof walba culayska hayna Allah ka qaado Ilaahay subhanahu wa ta'ala. Dhammaanteena qaali ahaanshiisa Allah na geliyo. falanqaynteena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa finalka koobkii afarta kooxood oo la soo gabagabayn doono biidnillahi raxmaan. ku laabanayno kooxaha afarka waxay ahaayeen kooxda MCC iyo Elman, kooxda dekedaha iyo kooxda LLPPJ. finalka waxaa soo gaaray oo isku soo hareen labada kooxood Elman iyo dekedaha. sida aan wada xasuusano kooxda dekedaha waxay ku guuleysatay koobkii Jarmal Daawud, waxay kaloo raacsatay koobkii Super Koobaha xusidda mudnaa sanadkan lagu qabtay magaalada Baydhabo maamul goboleedka Koonfur Galbeed. koobkaasi oo Jarmal Daawud wuxuu dhex yaalay koobkaasi kooxda haysato koobka Jarmal Daawud dekedaha iyo horyaalka dalkeena Soomaaliya kooxda gaadiidka. sida caadada ah ama sida jiro kooxda soo qaatay koobka Jarmal Daawud iyo kooxda soo qaatay koobka horyaalka ayaa waxay ciyaaraan Super Koobaha. soo marka waxaa lagu ciyaarayay garoon ku yaalo magaalada Baydhabo lagu magacaabo Ayub Stadium Ayub oo loo magac daray haliyay hore xul qaran macallin Allah u naxariistay qabrigiisa Allah wasalaam ala Ayub. xaqiiqatan koobkaasi koob aad weyn oo fac weyn xamaasadiisa watii uu ahaa. waxaa ku soo guuleysatay koobkaasi soo qaatay kooxda dekedaha. kooxda Elman sida xasuusano koobka Jarmal Daawud waxay soo gaartay kama dambaysta finaalihii ayadii kooxda dekedaha, isla markaasna si la yaab leh waxaa kaga qaadatay kooxda dekedaha. performance ahaan iyo qaab ahaan marka la fiiriyo labada kooxood waqti xaadirkan waa labada kooxood ugu awoodda badan. macnaha marka ciyaari la soo dheelay koobkii Jarmal Daawud soo dheelay ayaan ka hadlaynaa, laakiin kooxaha sanadkan jiro dhammaantooda waa awood badan yihiin. ilaah awood iskale subxaana caza wajalla. macnaha diyaar garowgooda aad u fiican yahay. macnaha dhinac kasta ayay ka diyaarsan yihiin, ayagoo dhinac dhaqaalaha koox kastaba ay ka rajaynayso meelo fiican inay tartamada bilaaban doona ka gaaraan ayagoo ku jiraan diyaar garow. labadan kooxoodna diyaar garow muddo dheer ay sameynayeen ayagoo isku diyaarinaya koobkan iyo koobabka kale oo bilaaban doona xiriirka sumadka kubadda cagta ay dhigayaan. saasoo kale kooxda Elman ayaa waxay aad iyo aad diyaar garow ugu jirtaa, niyaddeedna ay ku haysaa sidii ay kaga arsan lahayd oo ay koobkan kaga dhigi lahayd kooxda dekedaha. saasoo kale kooxda dekedaha oo calankeeda uu suran yahay oo macnaha calankeeda uu badbadaayo oo bidbidaayo calankeeda oo dabeesha ay wado ayaa waxay leeyihiin maadaama koobka Jarmal Daawud aan soo qaadanay Super Koobahana aan kusoo darsanay midkaanna anagaa iska leh. kolba la arki doonee kooxdii nasiibkeeda uu noqdo oo ciyaar wanaag la imaado nasiibkeeda saacido. adoo ciyaar fiican sameynaayo iyo adoo ciyaar xun baldhigaayo labadaba waa laga yaabaa inaad koob qaado, labadaba waa laga yaabaa inaad koob ku wayso. kooxda dekedaha runtii ciyaartooy aad iyo aad qaarkooda professional u ah, qaarkooda ciyaartooy da'yar soo baxaya. macallimiinta kala hogaaminaya macallin Saciid Geesay iyo kooxda Elman macallin Mahad waa macallimiin aad iyo aad qabiirin u ah, aqoon-yahana ah oo runtii diyaar garowga markaad aragto kooxdaas ay u diyaarinayaan ama ay usoo diyaariyeen ciyaarihii ay soo dheeleen ama tartamadii ay ka soo qayb galeen ayaa waxaad arkaysaa inay ku jiraan good performance.
qaab ciyaareed aad iyo aad u wanaagsan. deganaanshaha labada macallin, isku xirka maamulka ciyaartooyda, runtii waa macallin Maicon oo dhalinyaro ah, da'yar ah, nin howlkar ah, shaqadiisana aad ay u wanaagsan tahay, aqoontiisana kubadda cagtana aad ay u hersarayso. maxaa yeelay ciyaartooyna waa soo ahaa, macallinna waa uu yahay, muddana waa ku dhex jiraa. maasha allah, macalimiinta da'yarta ayuu ka mid yahay. macallin Musaciid iyo macallin Geesey, macallin waayo arag ah, maasha allah, muddo isboortiga ku dhex jiray, aqoontiisana aad u sarayso, aad u degan, xisaabtan badan. maasha allah, kulliba la arki doonay labada macallin kooxdii nasiibkooda u saaciido iyo ilman haddii dhahdo aninkan waa ka reebanaa maraba mar labaad inay igu dabaaldegto. ciyaartooyda ay kala wataan runtii waa ciyaartooy aan kala dhicin, kulli professional ah. kooxda digada afar ciyaaryahan oo waxaa u dhidan ajnabi ah. waxaa u ciyaaraan sidaan wada ognahay Abdul iyo maxaa la dhahay haddii ilaahay ku rumeeyo Asakwa iyo waxaa kaloo u ciyaarayo kooxda digadaha maxaa la dhahay ninkii la dhahay Mashoodi iyo Zakariya. Zakariya wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda ajaanibta dalka Soomaaliya muddo dheer ku qaatay. maasha allah, maasha allah, maasha allah. haddana waa ciyaaryahan muslim ah, af Soomaaligana bartay. aad iyo aad dhaqankiisa macnaha nidaamkiisa iyo uu leeyahay nin aad iyo aad u furfuran u firfircoon. ciyaartooyda Soomaaliya maasha allah oo macnaha oo professionalka ah iyo qaarka aan professionalka ahaynba, runtii ciyaartooy dhalinyaro ah, da'yar ah, hariidka Sulaymaan Saluu, Idriis, ya maasha allah. waxaad arkaysaa nuur iraad, Cusmaan Kaash, Xaaji macallin, maasha allah. Xaaji ciyaaryahan aad iyo aad da'yar professional ah oo macnaha shaashadaha caalamka saaran, maasha allah. mustaqbal fiican kule kubadda cagta, maasha allah. nasiib wacan dhammaantooda ciyaartooy aad u dhalinyaro ah, aad iyo aad dhalinyaro ah. saasoo kale waxaa kooxda Elman, saasoo kale ayagana ciyaartooy aad iyo aad dhalinyaro ah oo professional ah. saasoo kale ciyaaryahan kooxda digada waxaa kaloo hayo El Nuur, saasoo kale Xaajo Xasey oo way arag ah, legend ah. kooxda Elmanna waxaa u joogo ciyaaryahan Awees, ciyaaryahan Siciid oo dhaawac kaga maqan, ciyaaryahan daafaca Bille, Menes, Wilij, Ciise, kabtan Ciise, maasha allah. xulka qaranka aan ogeyn kaalin weyn ka soo qaatay. sayga ruushka Cabdiqaadir Siido, maasha allah, maasha allah. saasoo kale Cabdixaafid, ciyaartooy yaryar national teamka hadda aad iyo aad mustaqbal fiican ugu leh, maasha allah. ciyaaryahan Geesey Cabdifataax, waxaad arkaysaa Stephen oo khadka weerar ka ciyaaro, ciyaaryahanada ugu halista badan weerar ka mid ah. kulliiba Soomaalida horey u sheegeen farta laysku hayo layskuma faanshaydeen. marka labada kooxood waxaan rajaynaynaa inay soo bandhigi doonaan ciyaaro aad iyo aad u qalma final koox, macnaha ciyaari karo final u qalma. macnaha u qalma macnaheedu maxaa waaye haddii ciyaarta ay noqoto ciyaar buurin ah oo golo badan la iska dhaliyo, koox iskaga guuro. haddii ciyaarta noqoto ciyaar dagaal ah, macnaha calaamooyinka ay bataan oo roosooyinka ay bataan. marka labada kooxba runtii waxay ku jiraan xilligooda, ay ku jiraan performance fiican ay ku jiraan. labada macallin kala hogaaminayo. waxaan leenahay insha allah taageerayaasha kasoo qayb geli doona inay ciyaar aad iyo aad ay la riyaaqaan, aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aan rajaynaa biidnillahi raxmaan. saasoo kale waxaa diyaargaro loogu jiraa ciyaarihii maamul goboleedyada. maamul goboleedyada dhan waa soo xaroodeen. intay ku soo xaroodeen magaalada Muqdisho, waxay degan yihiin magaalada Muqdisho, hoteelada ku yaala. waxay diyaargaro aad iyo aad ay ugu sameynayaan garoomada jaamacadaha, injineer Yariso iyo garoonka istaadi Muqdisho oo ay galabta fiinaalaha ay ka dhacayso. maamul goboleedyada ayagana insha allah waa
falanqayn doonaa halhala usoo qaadan doonaa maalinteeda tiila insha allah. Macallimiinta maamul goboleedyada hogaaminayo sanadkan oo macallimiin da'yar ah oo aad ugu diyaar garoobay maamulo waxaad arkaysaa daba socdo daba taagan tababarka meel kasta daba taagan u sameynayaan ballanqaadyo u sameynayaan dhiirigelin u sameynayaan waxaa la dhahayay habeenkii casho u sameynayo tababarka daba taagan maasha allah waxaan leenahay sanadkan maamul goboleedyada kaliba gabar banaadir waxay taagan tahay oo difaacana sanadkan waa sanadkeyga waa meesha lagu qabanayo waa gobolkeyga marka maamul goboleed kale waxay leeyihiin warkaas mana anfacaya anaga hirshabelle galmudug jubbaland koonfur galbeed weliba waxaa aad iyo aad diyaargarow ugu muuqdaa hirshabelle koonfur galbeed jubbaland galmudug iyo banaadir gobolka banaadir laftigeeda maxaa yeelay tababarada ay sameynayaan ciyaartooyda ay haystaan iyo qaabka ay ku shaqeynayaan waxaa waaye runtii arrimo oo maaragtay horumar fiican leh kubadda cagtana horumar u leeyahay maasha allah waxaasoo dhan waxaa fududeeyay xiriirka samada kubadda cagta oo hoggaan gudoomiye cali cabdi maxamed insha allah waxaan rajaynaynaa ifaalaa muuqanayo insha allah waxaan leenahay guul iyo horumaraan leenahay biidni illahi raxmaan asalaamu calaykum